haddii arrintani ay fusho waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in amniga gudaha iyo deegaanada SSC dhammaan amnigooda aad u xoogaysanayo lama aqbali karo in suuqa lala maro waayo dhar maaha wuxuu lagu xaragado waa dilaa. This is my city. I left it 20 years ago, my city. maalinnimadii shalay ahayd maamulka SSC Khaatumo ayaa ku dhawaaqay mamnuucidda hubka qaybihiisa kala duwan in lagu dhex wato magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee ah caasimadda maamulka SSC Khaatumo. wasiirka wasaaradda warfaafinta Najiib Barkhadle ayaa war-saxaafadeed u akhriyay warbaahinta waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in gabi ahaanba la mamnuucay in hubka ay la soo galaan ciidamadu magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. shacabka ku dhaqan caasimadda maamulka SSC Khaatumo ayaanu weydiinay sida u arkaan awaamirtan ay soo saartay dawladdu iyo sida ay u fuli karaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan soo socota. marka hore ummadda islaamka iyo gobolka wixii dhegaysanaya iyo wixii daawanayaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan go'aanka soo baxay 22 bisha waxaan u arkaa inuu yahay go'aan mar hore loo baahnaa oo hadda ka horraysa oo aan dhibaatooyinkan dhacay oo ayan dhicin haate waxaa la yidhi caanadaatay gadaashooda la qabtaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa wax loo baahnaa waa wax daahay waa wax mar hore u baahnaa in laga magaciiseeyo hadde waxaan kale oo ku kordhinayaa waxaa iyana soo badatay oo ayaamaha kambarya laga nastay carruur baa la waayey iyo carruur la naadinayo waa cudur hore u jiray oo isaguna haddeer inagu soo kordhay oo soo noqday sidaa darteed sida kaasoo kale in go'aan degdega laga gaadho runtana laga gaadho meesha ay taana wax ka xun yihiin ayaan ku bogaadinayaa hoggaanka iyo maamulka dawladda SSC aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u sheegayaa shacabka dadweynaha reer SSC Khaatumo inay maxay toolay la shaqeeyaan dawladooda ay maxay toolay hubka aysan la soo galin magaalada inay si fiican ula shaqeeyaan inay hubka maxay toolay ay waxa dawladooda ay farto inay maqlaan oo dhageystaan oo aysan hubka la soo galin oo ay wax maqlaan ay waxaan joojiyaan dadkan maxay toolay khamriga waxaan cabayna in la joojiyo oo maxay toolay wax laga qabto yadana ayaa fiican dadka shacabku ha la shaqeeyaan dawladda ay waxna ha maqlaan oo ha dhahaan maxay toolay waxaan idinka la idin qabanaya idinkiyo dadkiina baa la idin qabanaya inay joojiyaan oo wax maqlaan oo hubka ay dhigaan dawladuna inay ku adkayso inay barido maaha maxay toolay dhahaan waxaan sida maxay toolay xoyn ugu ma soconeen hadii kale hubka ha joojiyaan waxa maqlaan waan idin bariyaa dhalinyarada maxay toolay ma fiicna maalin walba inaan inaga dhinta oo inaga dhexdeeniya marka inay joojiyaan baan maxay toolay ka codsanaya codsigaas waxaan aad iyo aad saaka ugu bogay ula dhacay ogeysiiskii ka socday magaalada dhexdeeda ee lagaga hadlayay nabadgelyada dalka iyo dadka dhexdiisa lagaga hadlayay arrintaas oo iiga dhigan saaka subaxdii la xoreeyay lambarkii labaad iiga dhigan waxaan ku bogaadinayaa ummadda inay amarkaa qaadato waa mid dalka iyo dadka iyo mid walba u dana waa shakhsi kasta waa mid u dana ciddii go'aanka gaadhayna waxaan leeyahay jasallaa khayr waxaan intaa ku darayaa wax kasta oo dalkeenna iyo dadkeenna iyo degaankeenna iyo deriskeenaba xumaynaya waa in meel looga soo wada jeedaa dawladdana loogu hoggaansamaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciddii go'aankaa soo saartay allaha ku guuleeyo dawlad jirta taagan sii socota allaha ka dhigo sidaa ay maalin walba saaka u muujisay saaka dawlad baynu nahay xora oo xalaala waa in qof waliba gartaa shicibnimadii way hadhay qofkii qoriga sitoo waysinta adaa lagu danaynayaa adiga dawladda candhuufa tufkuma aha ninkii hadhowta waxyeello gaadhow ha caaban waxaan bogaadinayaa go'aanka soo saaran guddiga nabadgelyadu ee SSC Khaatumo oo shalay ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda warfaafintu waxaan leeyahay horta in amni la helo amnigu waxaan ku noolnahay haddaan amni la helin lama noolaa karo
waxaa lagu hortagi karaa amni darradana in loo hoggaansano awaamiirta guddiga amniga gobolka hadday tahay booliska hadday tahay xasilinta waa in loo hoggaansamaa dowladdan waxaan farayaa inay dowladdu wacyigelin samayso waayo dadkan wuxuu u baahan yahay in la wacyigeliyo u baahan yihiin intaan khasab hubkii looga dhigin saan isku dhac u imaan marka hore waa in dowladdu ay samaysaa wacyigelin waa in dadka wacyigelisaa waa in muddo la qabtaa la muddeeyaa xidinta wacyigelinta la qabanayo marka aad baan bogaadinayaa waxaan ahay qurba joogta magaalada waa deganahay marka bayaankii ay dowladdu soo saartay shalay oo ahaa inaan qofna hubka magaalada ku dhex waran aan ahayn magaalada dowladda bilayska iyo ciidamada jiidda jooga arrinkaa haddaan ahay shibcka magaalada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana arrinta keliya oo dee ammaanku ku sugmayo sababto haddii nin aan ciidanka ka tirsanayn aan bilaysna ahayn oo magaalada maaragtay maxaa la yidhaahdaa dee hub ku dhex wata yacni wax walba ka soo roogaa wata soomaaliya beri waa boodaa magaraysa marka waxba isagana xitaa aan maxaa la yidhaahdaa aan waxba u jeedin baa laga yaaba qof intay saaf dhaafaa dhexbaday kaga qarxado marka taasuna dee ammaanka wax u dhimaysa marka taa aad iyo aad ayaan u soo dhowaynayaa dee dadka badidooda xitaa dee waxaad oran kartaa boqolkiiba 99 aad ay ugu farxeen magaraysa marka dowladdu waxaa la weyn halkaa ka wadaa waxaan ka hadlayaa go'aankii dawladdu soo saartay sax buu ahaa waana taageeraynaa awal bay ka gaabisay in dooraannu dawladda eegaynay oo lahayn war dawladdu siday tahay war waxan may ka dhigto hubka wax wiil yaroo xunahoo aan qorigaba qaadan karin saac ulaa leexaya qaar baannu markayna soo agmaraan ka baqnaa inay nagu dhuftaan dawladda boqolkiiba boqol waa taageeraynaa aad iyo aad baannu u taageeraynaa go'aankaas hana lagu wado waa ku mahadsan yihiin aadna hana lagu sii wado weliba yaana lagaga hadhin weliba sidaa haddii aan ka jawaabo baaqa ay soo saartay dawlad maamul goboleedka Khaatumo State in hubka laga dhigo dadka suuqa jooga waa shay habboon weeye hubkana sidiisaba qof jiidda la taga oo wax ku difaaca iyo qof gurigiisa dhigta mooyaane lama aqbali karo in suuqa lala maro waayo dhar maaha wuxuu lagu xaragoodo waa dilaa wax dilaaya in suuqa lala maro lama rabo marka waxaan jecel lahay maamulka dawladda in loo hoggaansamo oo la aqbalo oo hubka ninkii jiidda la aadayana la aado ninkii kalena gurigiisa dhigto wuxuu u hirgeli karaa in dadku horta dee mudacnimo la yimaado dawladda awaamirteeda u aqbalo waa in dadku dawladda awaamirteeda u hoggaansamo dadka waxgaradka dhallinyarada jamaahiirtii u soo halgantay ma garanaysaa waddanka waa inay aqbalaan awaamirta dawladdooda iyo wixii dani ugu jirto dadka waa inay aqbalaan waxaa danta ugu jirtaa inuu dadku amni helo amni in la helaa meel hub suuqa lagu xaragoonayana dee amni ma jiro waxaan aad u bogaadinayaa oo aan soo dhaweynayaa baaqii uu soo saaray shalay iyo bayaankii wasiirka wasaaradda warfaafinta SSC Khaatumo mudane wasiir Najiib Barkadle waxaan aragtideeda haddaan ka dhigto ku soo ururinayaa arrintan waa arrin in badan qof kastoo reer SSC maskaxdiisa ka dhex guuxaysay kaliya waxaan sugaynay baaqa dawladda intuu ka soo baxay bayaanada arrinta taabanaya haddii arrintani ay fusho waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in amniga gudaha iyo deegaanada SSC dhammaan amnigooda aad u xoogaysanayo aanuna aaminsanahay sidoo kale in dadka shacabka reer SSC Khaatumo ay arrintan aad uga warsugayeen xagga dawladda waxaana sii xoojinayaa in arrintan ay iska kaashadaan bulshada iyo dhammaan ciidamada SSC Khaatumo iyo madaxduba oo ay u dhagan nuglaadaan baaqyada ka soo baxaya maamulkooda arrintan والله وكدبين أون إن برشلونة حجودا ما دام أي باهي بدنو قبان أمنيجا واحد بمدينة دتك يسرع راعيان شنعتن كأوجس وشي كده بحبكي وأن ولي دت بدن نروش عادي هذا ولي كسر نقطة كحال الله هارد إنما كسر نقطة جناعس كسر نقطة نروش عادي هذا سامي نيجي وسعنس كسر نقطة وكديجيس ترى هم كلي وحلو قلي هاي شيء ده هي فيلا هذا قال هذا يعلى ذوك السعودان يدفع دور الدين إن شاء الله تعالى وأرن lala soo daahay oo dawladdu ay la soo daahday oo mar hore loo baahnaa waa arrin dadku ay sida biyaha loogu ugu oomanaayeen shacabka SSC-na markii wasiirka warfaafinta uu arrintaas sheegay aad iyo aad bay daliya dibadba u soo dhaweeyeen waxaan kaliya oo ku dari lahaa inta aan howlgalka hubka dhigista la samaynin in laga horeysiiyo wacyigelin baabuurta lagu xidho codbaahiyeyaal bulshada loo sheego
kuwa miyiga hubka kala soo gelaya iyo kuwa magaalada jooga iyo kuwa aan saxaafadaba eegin hadday doonaan telefoonada waaweyn aan haysanin inay ka horrayso wacyigelin oo codbaahiyayaal lagu xidho baabuurta oo magaalada lala dhex maro oo ilaa muddo 3-4 maalmooda wacyigelinta dadka lagu wado dabadeedna ciidamadii howlgalka ee hubka magaalada lagu sito ka dhigayay dadka ay soo galaan iyagoo dadku ay ka dharagsan yihiin warkan waxa laga yaabaa inay warbixinta kaliya iyo codbaahiyaha ay dhageysteen iyo wacyigelinta dadku hubka ku dhigaanba laakiin haddii ay ku soo boodo noqoto waxaa dhici kara qof hubaysan iyo askari hubaysan isku dhac baa iman kara taasina waa tii aynu ka cararaynay inay dhacdo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa qodobadii dawladda soo saartay ku saabsanaa amniga ee wasiirka warfaafinta soo saaray kulli waxaan malanayaa dee waxay ahaayeen qodobo bulshada u daneynaya iyo deegaankaba iyo dadka magaalada imaanaya dadka magaalada soo booqanaya iyo sharafta deegaanka iyo sumcadda deegaanka haddii aan gudagalo oo kale waxaan aaminsanahay anigu maanta qodobadan dawladdu ay soo jeedisay 90% ama 80 waxa suurtagelin karaa maaha ciidanka dawladda maaha ama ciidanka magaalada lagu soo daadiyo maaha waxa suurtagelin karaa 80% waa bulshaduna hadda taa bulsho u bisil amniga ama caqabadaha amniga aba ay yihiin dad garan kara dhibaatadu waxaana ay keeni karaan hubkan keeni karo magaalada gudaheeda haday yihiin qodobadan way suurtagelin laakiin hadii amnigu yihiin waxaan ay bulshada iyo ciidamada amnigu iska hor imaanayaan oo bulshada waxoodu ay tahay wax loo yaqaan tuub iyo inay moodayso waxaan iyaga lagu weerarayo waxaan aaminsanahay arrintaas inay suurtagelin marka shacabka baaqa baan u dirayaa boqolkiiba 80 qaybta laga qaato boqolkiiba laga qaato qaybta ugu muhiimsan laga qaato amniga sidoo kalena hub qof kastaaba uu isqaamo isagu qoriga iska dhigo saaxiibka qoriga ka dhigo sidoo kale waxaan sidoo kale ciidanka dawladda ama booliska waxaan faray iyagana laftigoodu inaynan ciidan fara badan la soo deeyay meel lagu soo deeyay ciidan sistemaysan oo meeshu maraya iyo meeshu ka hawlgalaya og sidoo kalena akhlaaqiyan dhisan meel lagu soo daayo